الرحمن الرحيم. فريستا رالي هذا فريستا ساعة سواركتان dadka dambe fursad siiya qolada hore ha fadhiistaan dadka hore u fadhiiso dadka dambe waxa arkaan bismillaahir rahmaanir rahiim Allahu akbar Allahu akbar meesha dhaxmiya laga yimid oga balkoona soo qaad ogaadeen yaa xorowdo xorriyada soo lama rabo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay inaynu hadalkeena oo kooban waqtigeena oo kooban inaan waxoogaa yar isu taataabano waxyaabaha muhiimka ah filayno marka hore waxaan rabnaa inaan dulmar yar ku samayno oo waxaad hadda arkayseen Cabdiqaadir inuu inoo sheegay inaan dagaal ku jirnay haddana aynu wada kale oo heshiis nabadeed ku socono waxaa laga yaabaa inaad weydiinaysaan oo maxay keentay heshiiska la galay intee la eg yahay maxaa lagu heshiiyey ayaka talintii xaggay u kacday su'aalahaas laga yaabaa inay maskaxdiina ka buuxayaan marka waxaan rabnaa inaan si kooban isu kortaagno Ethiopia iyo NLF heshiis bay galeen heshiiskaas wuxuu bilowday dhaqdhaqaaqiisii ugu horeeyay bishii August sanadkii 2018 markii dawladda Abiy Ahmed ay dhaqaaday dhowr talaabo isku xigta maxaabiistii inay siyaasiga inay sii dayso inay ku dhawaaqdeen oo la burur argagixiso ahayd xaq u dir ay tahay in dimuqraadiyaddu ay xoogaysato oo wadajir loo wada shaqeeyo isbeddelin Ethiopia ka dhaco arrimaha markuu qaaday oo labna degdeg bay uga jawaabtay waa tii iyaduna ku dhawaaqday xabad joojin degdeg oo hal dhinac ah taasoo wax weyn ka bedeshay siyaasadda waddanka 12 Augustna waxaa sabab ka soo day wafdigu ugu horeeyay oo la faato 27 sano xabad socotay kadib oo madax guddiga fulinta oo afayeenku ku jiray ay yimaadeen waxaa 21 bishii Oktoobar ee 2018 magaalada Asmara ka dhacay gabagabadii heshiiska oo ururka NLF iyo dawladda Ethiopia ay soo gabagabeeyeen heshiiskoodii iyo waxyaabihii markaa dhex socday Ethiopia waxaan ku heshiinay waxa ugu muhiimsan dhowr qodob waxaa koow ka ah in NLF ay xuquuqdii ay lahayd ama wixii ay u dagaalamaysay ee qarniyaasha muddada ku dhow loo socday in arrinta NLF iyo Ethiopia ay si rasmi ah uga wada hadlaan oo meel la saaro meel cad oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacdana lagu ogaado arrintaas qodobka siyaasiga waxaa koow ka ah ay ka tarinta ogaadeen ayaa koow ka ah marka waa inaynu ogaano koow inaga Ethiopia waxaan heshiis ku nahay inaynu xuquuqdeena si siyaasi ah u raadino siyaasaddu way fara badan tahay laakiin nin walba dhan uu fasiran annaga dhankaanu u wadno ee biyaha iyagu ay u dhacayaan ee godka noo ay biyaha nagu isugu tagayaan waa in shacbiga iyagu ay helaan afti madax bannaan oo ay xor u yihiin meesha ay rabaan inay iyagu raacaan iyo sida iyagu ay rabaan inay u noolaadaan iyaga ay ka go'day waa in iyaga la weydiiyo annaga taasaa muhiim noo ah waxaa kaloo muhiim ah oo isku afgarannay in shacbiga iyagu ay helaan xuquuq siyaasi oo dhammaystiran oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca amniga intaba inay helaan xuquuq siyaasi oo dhammaystiran degmadan Shilaabo ee hadda inta cimrigeeda laga sheekaynayo inayna maanta ceel biyo ah 84 sannadood Shilaabo inaan ceel biyo laga qodin dawladnimada maaha cadaaladna maaha xukunna maaha waa xaqiraad iyo dambi laga galay shacbiga deegaanka waana waxyaabaha aan ka dhimanayna diidanahay way Shilaabo cudurka ku dhacay kali kuma aha gobolkii lixaad baan hadda soo galay ninba wuxuu yiri ninkii raba inuu arko qiyaamaha ogaadeen iyo gobolka Nogbeed ha dhex maro idinku geedaha ma iska googoyn kartaan dhagaxa iska rogi kartaan dhul wada laag ah
oo wada qow ah oo wada goodoona oo gabadha umusha foosha ay qabato dameer in lagu qaado mooye aanu baabuur mari karin baanu aragnay marka dhulka iyaga si kasta loo duleystay waana waxyaabaha aan rabnay inay dadkayagu ka baxaan heshiiska iyaga waxaa ka mid ah oo kaleeto in ONLF ay waddankan uga shaqayso si amni ah oo nabadgelyo ah danaheeda iyo calama arrintaa waxay gaar u tahay xukunka waxa weeye degmooyinka iyo gobollada iyo tuulooyinka ku cudur daaranaya odhanaya annaga wareegtadii nooma imanin nalama soo gaarsiinin 21 Oktoobar markuu shirka Asmara dhacay yay ONLF ogaadeen iyo sharci ka noqotay umana baahna cid dambe oo sharaxdo waxay doonayso xukunkeeduna maalinkaas u taab noqday insha Allah ta'ala inta naga dhimana waa dhamaystirayna waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo waqtigeena oo gaaban ka awgiis maxaan haysanaa maxaa inaga maqan waxaa kow ka dawladnimo nololoo dhan dawlad bay ka dambaysaa adduunyada iyo aakhirada waa laba janno marka laga tago islaamnimada iyo cibaadada jannada adduunku waa dawladnimo iyo xorriyad cadaalad weyn haddii dawladnimo iyo xorriyad cadaalad adduunka dushiisa aad ku weydo cadaab baad kaga nooshahay adigu waana wixii saa'idin galay ee gabdhaheenna tubac lagu gubo tubaytari lagu shubo tubalaayo lagu sameeyo karaamadii biyihii dahabka ahaa ee gabdhihii ogaadeen iyo biyaha dahabka ahaa in lagu ciyaaro taasaa keentay aakharana waa nin iyo camalkii tawxiidka in la qabsado yaa lagu gaadhaa furdaa ilaahay isagaana kowka marka jannada adduuniya ta aakhiraba in ilaahay suuqaya dara waan baryaynaa tacabkeediina waan la imaanaynaa insha allahu tacaala dadka reer Shilaabo iyo shacbiga reer ogaadeen iyo guud ahaan waxaan ka codsanaynaa in la midoobo raalli ahaada waxaan ka codsanaynaa in la midoobo waxaan ka codsanaynaa in hal dhinac loo dhaqaaqo waxaan ka codsanaynaa inaynaan inagu dib isugu soo noqonin markaan nabadgelyada ku baaqaynay cafiska ku baaqaynay waxaan lahayn kuwii dhibka geystay u xilqariya waxaan rabay inaan kuwii dhibka geystay u xilqarino oon dadkooda ku soo darno oo aan la takoorin oo inaan dhinac ka noqonin laanna kama maaranno iyaguna waa inay gartaan in sababta aanu hadalka u soo qaadanay sidaa ay tahay waa inay dadkooda u tanaasulaan waa inay cafis weydiistaan waa inay wixii shalay ay ku jireen ka soo noqdaan wey oo ay dadkooda ku soo dhex noqdaan waxaan annagu ballan qaadaynaa ilaahay baa wax bixiya ilaahay baan la hoosgelaynaa ilaahay baan la kaashanaynaa waxaan ballan qaadaynaa ummaddan wixii aanu ku hogaaminaynay 34 sano ilaa 35 sano oo 27 sano ka mid ay dagaal ugu jirtay inaanu gaarsiino ilaahayna uu noo rumeeyo riyadaas aan baryaynaa ogaadeen yaa xorowdo xorriyadda ogaadeen iyo cidda nacam allah inaga qabto wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu